Assalaamu calaykum. Sabirku ma aha ilaa waqtiga aad sugi karto balse waa sida wanaagsan aad u dhaqmi karto inta aad sugayso marnaba ha is oran way ka daahin wixii aad sugaysay ama weliga ma helaysid. haddii ukunta banaanka laga jibiyo nolosheeda waa dhamaataa, haddii gudaha laga jibiyo noloshii waa u bilaabataa oo digaagad yar baa dhalata. noloshaada wax kastoo sareeya waxay ka bilowdaan gudaha, marnaba ha sugin wax banaankaaga yimaada inay ku bedelaan ama farxad ku keenaan. dadka qaarkii marnaba ma lunto quruxdooda si kastoo ay u weynaadaan da'na ugu darsanto, sababtoo ah quruxdooda marnaba ma ahayn wejiga, waxay ahayd qalbiga. ma joojin karno dhibaato inay dhinaceena soo aado oo noo timaado, laakiin waxaan awoodi karnaa in aynan siinin dhibaatada kursi ay ku fadhiisato oo nagula joogto. guusha dadka kale ma aha adiga guuldaradaada ama fashilkaaga. marnaba ha ka xumaan qof kale guul uu gaaray. isdiyaarin, dadaal badan, doonid joogtaa, dulqaad iyo duco ayaa inta badan ah sababaha guusha. dulqaad yari iyo degdeg waa xididka dhibaatadaada. ma qasbi kartid nolosha inay ku siiso jawaabo ama sidaad rabto. wax kastoo u dhacaan waa inaad ogaataa in culays kasta fudeed ka dambeeyo. waa inaad aqbashaa in wax kasta waqti qaataan. ha ka dhigan farxaddaada inay ku xirnaato wax waqti kooban ah ama wax aad waayi doonto. alle raaligelintiisa ka raadso farxad, sababtoo ah isaga keliya ayaa baaqi ahaanaya. faynustu ma hadasho, waxay isku soo bandhigtaa iftiinkeeda. kuwa guulaystay marnaba ma aha inay naftooda bunbuuniyaan, balse waxqabadkooda ayaa la rabaa inuu soo bandhigo oo hadlo. haddii aad qalbigaaga wada siiso qof, way dhaawacayaan. wada sii qalbigaaga alle subxaana wa tacaala, isagaa ku toosinaya kuna hoojinaya. daacad u noqo, laakiin ha ogolaan in lagu isticmaalo. jeclaaw, laakiin ha ogolaan in qalbigaaga la jibiyo. aamin, laakiin ha noqon qof fudud. dhegayso dadka kale, laakiin ha ogolaan inaad adigu codkaaga weydo. marnaba ha ka quusan wax aad si dhaba u rabto. way adag tahay in la sugo, laakiin waxaa ka sii daran inaad ka shalayso. goortii aad aqbasho qof, waxaad aqbashay wixii ay horey u soo mareen oo dhan. sidaa daraaddeed dib ha u soo go'an, hana u adeegsan. goortii aad qof necbaysato, wax kasta ay sameeyaan waxay noqonayaan kuwo kaa xanaajiya. haddaba ha gelin niyaddaada wax nacayb ah. aargoosiga ugu wanaagsan waa inaad horey u socoto, cafiso, iska ilowdo, kuna dadaasho inaad guulaysato. marnaba aad ha ugu xirnaan dad haddii aysan iyaguna sida oo kale dareemayn, sababtoo ah jecel hal dhinaca maskax ahaan ayuu ku baabi'in karaa. dadka qaarkii ma rabaan inay runta maqlaan, sababtoo ah ma doonayaan inay dhalinteedkooda la burburiyo. jacaylku waxba ma aha haddaan ficil la socon. aaminaadu waxba ma aha haddaysan caddayn la socon. raaligelintu waxba ma aha haddii aan isbeddel jirin. dadku waxay inta badan hilmaamaan inay ku mahadceliyaan marka aad wanaag u samayso, laakiin marnaba ma hilmaamaan inay ku eedeeyaan haddii aad hal qalad ku samaysid. way adag tahay in la samro, waxaase ka xun in la lumiyo abaalmarinada sabirka. bilaayo sababta inaad u noqoto xagga alle ayaa ka wanaagsan barwaaqo ku ilowsiisa xuska alle. xaqiiqdii lama wada noqon karo hadal yaqaan iyo khudbad jeediye caan ah. soomaalidana waxaa laga hayaa ilaahay la kala baryo og, hadalna la kala odhan og. hadalkuufanse waxa uu sababaa dadka inay ku dhegaystaan iyaga oo xiisaynaya hadalkaaga. sidoo kale waxay kuugu ixtiraamayaan in dheergaradnimadaada, waayo habka aad u hadasho waxa uu ifiyaa shakhsiyaddaada iyo aragtidaada nololeed. intaas ayaan ku soo afmeerayaa. waxaad nagala socoteen rajada iyo maanta. haddaad ku cusub tahay subscribe dhe, sidoo kale gambaleelka rugmo si aan kuu soo gaarsiino muuqaalada xiga. haddii aad ka heshay videoga like saar, sidoo kale la wadaag asxaabtaada. mahadsanid.